dhegeystayaal aan ku bilaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa xalay gudoomiye cusub u magacaabay gobolka Bari ee xaruntiisu Boosaaso tahay. Waxaanay wararku tibaaxayaan in badhasaabka la magacaabay isla saacada kadib markii la magacaabayba uu magaalada kula kulmay isimada gobolka midkood. Wariye Maxamed Xasan Dhalo ayaan haddaba goor dhaweyd weydiiyey faahfaahin dheeraada. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani waxa uu xalay gobolka Bari u magacaabay Cabdirasaaq Cali Siciid oo bedeli doona gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamed Awaan oo isagu ka mid noqday dhawaan 11kii sanatar ee Puntland laga doortay. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari ee uu madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani xalay magacaabay Cabdirasaaq Cali Siciid horay ayuu Puntland uga soo noqday wasiir xilligii dowladda Cadde Muuse waxaana gudoomiyuhu isla xalayba kolkii la magacaabay saacad kadib oo booqasho ugu tagay beldaaje maxamed beldaaje Ismaaciil oo kamid ah ismada Puntland gaar ahaan shantii isin ee dhawaan soo saaray go'aankii ku saabsanaa arrintii Boosaaso ee xalka ismadaasi sheegeen in looga gaarayo arrintii u dhaxaysay BSF iyo ciidamada kale ee dowladda Puntland. Waatay laakiin dhanka kale Maxamedow waxa isaguna qoraal kala soo saaray ra'iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid oo ku deedafeynayo hadal uu madaxweynihii hore Puntland Cabdiraxmaan Faroole sheegay. Faahfaahin maxaad ka haysaa arrinta? nagaashow inagoo og in shalay ay magaalada Boosaaso ka tageen qaar ka mid ah isimada Puntland ee halka waanwaanta iyo nabadeynta u joogay iyo siyaasiyiintii uu ka mid ahaa Cabdiraxmaan Faroole madaxweynihii hore Puntland iyo Cabdiweli Gaas iyo gudoomiyihii golaha wakiilada Puntland oo shalay qardho ka hadlay waxaan ogsoonahay in Cabdiraxmaan Faroole uu halkaasi ka sheegay hadallo ku saabsanaa Cumar Cabdirashiid iyo go'aankii Boosaaso iyo bayaankii ay soo saareen iyo qaabkii ay waxay isula tafaahumeen. arrintaasi waxay dhalisay in mar kaleeto uu qoraal gaaban bartiisa Twitter ka soo dhigo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxa uu ku sheegay qoraalkaasi gaaban in wafdigii isimada ahaa ee Boosaaso ka laabtay aanay daraf ka noqon arrintii iyo mowqifkii isimada gobolka Bari buu yiri ay soo saareen. wuxuu sidoo kale sheegay in sidaas oo kale ay fiicnaan lahayd in ay dhexdhexaad noqdaan siyaasiyiintu si buu yiri ay bari xal arrimaha xalkooda uga mid noqdaan. marka arrintaasi oo u muuqata in uu dhinac u tirinayo oo ku tilmaamayo siyaasiyiintii ay ka mid ahaayeen labadii madaxweyne ee hore ee Puntland ee shalay qardho ka hadlay. Waatay mar haddii siyaasiyiintii ergada ka midka ahaa ee xalka raadinayay sida ay isku khilaafayaan oo durba soo baxay inay hadallada isweydaarsanayaan bal xaaladda Boosaaso ilaa xalay siday ahayd iyo jawiga dadka nooga waran. magaalada Boosaaso hadda wax badan iskama bedelin waana sideedii horeeto oo xaaladdu iska caadi laakiin nagaashow inta waraaqa isdhaafsan ama waraaqa iska hor imanaya ay soo baxayaan dadku waxa ay sheegayaan inay dareemayaan welwel ku saabsan sidee nabaddu sii ahaan doontaa oo salmugiis laguma fadhiyo oo cabsi ayaa jirta laakiin xaaladdu sideeda kaleeto waa caadi. Maxamed Xasan Dhalo faahfaahinta goor dhaweydisiinaya ayuu kaasi ahaa qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da ayaa aragtidooda iyaguna ka dhiibanaya waxaana ka mid ah dadkaasi fariimahooga Facebook noo soo mariyey Cabdilaahi Xasan Nuur oo jooga Dhadhaab waxaanu leeyahay madaxweynaha Puntland oo maamulka cusub u magacaabay gobolka Bari iyo siyaasiyiinta ergada ahayd ee weli hadallada iskhilaafsan ay ka soo baxayaan waxay caddaynaysaa inuu weli jiro khilaaf labada dhinac u dhexeeya waxaanse ugu baaqayaa buu inay u turaan shacabka maatada ah. Cabdilaahi Maxamed Faarax oo isna jigjiga jooga ayaa waxa uu leeyahay maamulka Dani magacaabay xageebuu ka shaqayn doonaa isimadii iyo bulshaweyntii gobolka Bari go'aan bay qaateen qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da aragtidooda cabirayay ayay kuwaasi ahaayeen.